بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، أن علماء waxay ku yiraahdeen mawduucaad galaysaa diintu waa la kacabsi baa ku yiraahdaa la kacabsi uma gali doona, laakiin موضوع التقوى بالذات كما ورميه عن سكدي دوناون الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوحد المام يوحكة المام. حديث كإمام الدارقطني وسوريي قضية المقدسي في المختار وكوريي شيخ الألباني وحسن وقلت المام يوأه المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس. نبي عليه الصلاة والسلام وحط الماما يردقن كقفك مسلم كايوحي مؤمنك دقن كيسو حويا منبي ليه يألف ويؤلف. مؤمنك واقف لغصة أروره لغصة هرته dhaqan wanaagiisa, akhlaaq fiicnidiisa, caqiida wanaagiisa, waxtarkiisa adduunya waxtarkiisa aakhiraba waa qof dadku ay dhankiisa u soo kacaan, isagana aan dadku ka kala cararin. khayr male buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaan dadku ku soo dhowaanin ama jeclaanin, isagana aanay dadku jeclayn ama ku soo dhowaanin. يعني ألفد الله تلماميه إلهي سبحانه وتعالى لفظي كان قرآن كما يلبض مكو استعمال والمؤلفة قلوبهم أما سواك إلهي كنت عماما يا وألف بين قلوبكم ما الضمد يكل من ماشي تمحل التلماميه وحويا قفك مؤمن كاهي وقف دقن كيسا يدين تيسو أي كان سنيسو bulshadu inay ku soo hirato ku soo dhawaato. qofka mu'minkii maaha mid lacaana, mid cayb badan, mid gacan adag, mid dhaqan xun. dadka badh baa jira markay kaa soo horbaxaan aad waddada uga weecato, ama golahay fadhiyaan aanad jeclayn inaad fadhiisato, ama meeshaa fadhidaan aanad ku farxin markuu kuu yimaado. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay qofka mu'minkii kaa maaha. qofka mu'minkaahi waa mid dadku ku soo ururaan oo ku soo hirtaan oo jecel yihiin oo u yimaadaan, isaguna dadka jecel oo ku soo dhowaada. kaan sidaa ahayn buu nebigu leeyay khayr ma leh. dadka waxaa u mudan buu markaa nebigu yidhi wa khayru nnaas, waxaa u mudan u fiican anfacuhum linnaas, anfacuhum linnaas, dadka ka ugu waxtar badan. dadka waxa ugu mudan buu nabigu leeyahay markii la tilmaamay mu'minku qof lagu soo dhawaado lagu soo hirtay inuu iyo dhaqankiisu caynkaayay. mu'minka laftiisu noocaasi sidee bay u kala fiican yihiin, waxay iyaguna u sii kala fiican yihiin buu nabigu leeyahay anfacuhum linnaas, dadka ka ugu waxtar badan. asalka waa kii xadiidka muslim ku yaala النبي عليه الصلاة والسلام كنت المامي من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. حنوما لينا يا حديث كان سببتي سوينا هيد قلادي تري وحبانو تفتفنا ما وحبانو آخرنا يودت كواد دوينا أو يريب التصوح وحكود دويسان ومركي أركان ونبغى أركي وحي آخريان إن أن معصي يحمي شركتون كوتشرين وحكودي من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. ninkii awooda inuu walaalkii waxtarow xudaaraba ha noqdo, qofkii awooda walaalkiisa kale inuu waxtarow falyafcal buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, sidaas ha yeelo. xadiidkaasi markaa cumuuman wuxuu tilmaamayaa dhaqanka qofka muslimka uu leeyahay wuxuu yahay. waxaa kaloo uu tilmaamayaa iimaanku iyo akhlaaqda fiican siday mu'miniintu ugu kala sarreeyaan inay ka mid tahay siday u kala nafci badan yihiin.
siday u kala waxtar badan yihiin nafcigan aynu ka hadlaynaa markaa waa maxay waa nafci adduunyo iyo mid aakhiraba waxtar adduun iyo waxtar aakhiro bini aadam wax la taro horta waxa ugu weyn kow inaad aakhiradiisa badbaadiso khasaaraha ugu weyn ee bini aadam ku dhaca waa dii cimrigii oo dhan inaad khasaarto nolosha caadiga ah maalan ninka taajirka ninka wax baranaya ninka guursanaya ninka baa laga yaabaa marmar inaad ku khasaarto wixii aad samaysay waxbarashadii inaad saaqida ama intaad soo baratay waxbaba shaqo ku weydo tijaaradii intaad gashay inay kaa khasaarto laakiin waxaad rumaysan tahay weli inaad haysato maxay jaanis wax kale inaad tijaabin karto haddaad tijaarada markan loosgarayso weyday inaad si kale isugu dayi karto lacalla in mar dambe alla kuu furee guurku hadduu markaan kaa xumaado inaad mar dambe tijaabin karto waxbarashadu markaan hadday kaa xumaato inaad laakiin meel baa jirta hadday xumaato tijaabo dambaba aan lahayn waa cimriga markaad khasaarto markaad geeriyooto ee kitaabkaaga la laabo hadduu khasaare ku guntamo soo noqosho ma leh jaanis dambe ma leh marka khasaaraha qofka kaa badbaadiyey ilaahay sababtiisa kaaga badbaadiyey waa qofka kuugu waxtar badan maalan waxaynu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii diinta uu soo dhiibay nolosheenna waa dadka inoogu waxtar badan waxaa laga yaabaa adigu markaad waxtar ka fikirto dadka nool iyo meelaha kan inaad egeegto laakiin dadka inoogu waxtar badan leh waa dadka aakhiradeenna badbaadiyey ee nolosheennu waxay ku hagaagaysay tu adduuniya tu aakhira baa inoo sheegay sidaa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa waalcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالصabr inta rabbi dhaartay ayaa alla wuxuu leeyahay bini aadamku dhammaantii khasaare barhtankiiba ku jiraa baa la yidhi lafii khusr ilaahay baa dhaaranaya subxaana wa tacaala waxaanu ku dhaaranaya bini aadamku inuu khasaaraha barhtankiisa ku jiro qolaa alla ka soo reebo la yidhi khasaaraha way ka baxday oo iyaguma khasaarin waa qolada laga helay iimaan iyo camal suuban ama hagaagsan markaasaa weliba camalkaa suuban wax ka mida lasii tilmaamoo la yidhi waa kuwa xaqa isu dardaarma sabirkana isu dardaarma qofka xaqa kuu dardaarmay ee sabir kuu dardaarmay wax ku anfaco waxyaabihii kuugu wanaagsanaa buu kuu sheegay wax ku tara wixii kuugu roonaa sidaa awgeed maalan dhallinyaraatiin haddaynu dhallinyarada qur-aanku ka warramo wax ka tilmaamno ilaahay wuxuu ka warramayaa nebiyullaahi yuusuf oo dhallinyaro ah nebi yuusuf oo dhallinyaro ah oo imtixaano tiro badani nolosha soo mareen nebi yuusuf bini aadam imtixaanada mara kuwii ugu adkaabaa soo maray isagoo yar oo carruuraba walaaladii la colloobeen dabeetana waa tuureen god bay ku rideen godkii baa safar kala baxay isagoo yaroo carruuray addoonsadeen waa iibiyeen sida alaabta loo iibiyo reer baa laga iibiyey reerkii laga iibiyey baa haddana nin qurux badan buu hayo quruxdiisii haddana imtixaan ku noqotay oo haweentii joogtay jeclaatay waa diiday inay wax kasta oo ay ku khaldi karto ku samaysaabay isku dayday waa iska soo taagay inay boobtaayo kufsataabay isku dayday waa cararay dharkay ka dildillaacisay haddana waa la qabtay waa la xidhay xabsuu ku galay isagoo waxba samaynin ayuu xabsi ku galay xabsiga maxaa loo geliyey guriga boqortooyada ceebtiisu inaanay dabadda u soo bixin markii hadalka la maqmaqlay si loo ilaabo waayo ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa markii ay u caddaatay inaanu ninkani beri yahay kadib baa la xidhay berinimadiisi iyo cad baa la xidhay si warkanba loo ilaabo oo wuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi yuusuf oo waxaasoo dulmiya lagu sameeyey ayuu wuxuu ku tilmaamayaa
inuu haddana muxsin ahaa qof samaka taliye ahaa qof wanaag ka shaqeeya u ahaa dadkaasoo dulmiyey colaadba lama qaadan ee wuxuu isku dayay inuu wanaagun ugu yeedho ilaahay wuxuu inooga warramayaa markuu guriga joogay inuu ninka odayga ah ee gurigiisa uu joogay inuu cirdigiisa iyo sharaftidiisa u ilaaliyey inuu yidhi marnaba ninkii anigay wanaajiye gurigiisa ay keenay reerkiisa ugu xadgudbi maayo ku faraxumo ku samayn maayo xabsiga markuu galay qur-aanku wuxuu tilmaamaya laba wiil baa lala soo xidhay wadakhala macahu sijna fatayaan labaa lala soo xidhay labadii lala soo xidhay riyay sheegteen inay riyoodeen dabeetana waxay rabaan inuu riyada u fasiro riyadii intay u sheegteen riyada kama warramo ma rabo inaan ka warramo laakiin waxaan ka warramaya maxay riyada ugu sheegteen waxay dhahaan innaa naraaka min almuxsiniin waxaanu kuu aragnaa bay leeyihin kuwa ixsaanka sameeye ee dadka waxtara inaad ka mid tahay waxaa muuqata nebi yuusuf xataa xabsiga gudihiisa muu odhanin qolo gaalaaba ay xidhatay oo waa lay dulmiyo cadho waxaad aragtaba geeska ku qaad ee waxa uu tilmaamayaa nimanka kani nebi yuusuf xabsiga xataa gudihiisa inuu qof wanaagsan ku yaho dadka waxtara marka waxay leeyihin riyadayadatan baanu rabnaa inaad noo fasirto innaa naraaka min almuxsiniin inuu waxtar badnaa qur-aanku wuxuu kaloo inoogu tilmaamayaa walaaladiisii godka ku riday oo aan garanaynin isagoo xabsigii ka soo baxay oo madaxa ayay u yimaadeen dabeetana waa kii sida fiican safarkoodii iyo lacagtii iyo wixiiba siiyey mu odhanin waa nimankii godka igu riday anna maanta madax baan ahaaye waana argoosanayaaye ha la xidhxidho waa xidhxidhi karayey godkiisiina waa ku guri karayey inuu xidhxidho daaye intuu cafiyey oo xoolo siiyey ayuu sii daayey iyo waan garanaynin xataa isuma sheegin markii dambe uu walaalkii kala soo hadhay maxay ku lahaayeen fakhud axadanaa makaanah innaa naraaka min almuxsiniin bayana leeyihin kuwa aabba waana qabsanayaaye kuwa yagan kale mid qaada bay leeyihin oo wiilka yar noo sii daa waayo innaa naraaka min almuxsiniin bay tilmaamayaan nimankii godka ku soo riday waxay kaga abaal sheeganayaan inuu yahay maxay qof ixsaan badan inuu yahay intaa waxa dheer waxa laga yaabaa inaad tidhaahdo war kuwani dee waa walaaladii dee mar haddii ay niman isku aabba'iyiin oo walaalkii u yahay inkastoo walaalkaa kaa gardaran yahay marar badan baa qaraabanimada iyo walaalnimadu ku qaadaayo aad laga yaabaa walaalkaa inaad waxba ka soo qaadin wixii uu kuu geystay aad cafido bal kuwa aanay walaalahayn aynu eegno nebi yuusuf boqortooyada xidhatay xabsiyada boqorrada ee markaa meesha ka muuqday waxay ahayd xabsi aan tiraba lahayn meeshuna lagu ridaa la yidhi sanawaad markuu ku jiray falabita fi sijni bidca siniin baa ilaahay tilmaamaya sannado culammadu waxay dhahaan 7 sannado iyo meelaha markuu ku jiray xabsiga ayaa boqorkii riyooday dabeetana xaashidiis iyo dadkii u dhowaa ayuu yidhi war riyada tan yaa ii fasiraya waxay yidhaahdeen waa adqaasu axlaam tani mid la fasiri kara maaha bay yidhahdeen waa mid aanan garanaynin fasirkeeda gaaladii iyo intiis ag joogtay waa fasiri kari weyday kadib baa labadii uu riyada u fasiray sidii uu ugu fasiray waa tii noqoto midna wuxuu yidhi waa lagu dilayaa midna waa lagu sii daynaya boqorkaad khamriga u shushubi doontaa kii boqorka khamriga u shushubayo meesha jooga oo uu markii horena yidhi war boqorka ii sheeg inaan dulmi ku xidhnahay ayaa waxba ma xasuusanay markii la iska soo daayey dantiisu iska raacday hadduu xasuustay inay yuusuf u baahan yihiin dabeetana wuxuu yidhi ha lay diro nin baan ogahay xabsiga ku jiro haddii aan riyada fasiro haddii aan riyada u geeyo fasiraye
may odhanin warrinkaa la soo daayo ha la keenee manuu odhanin warrinkaa ha la soo daayo riyada haynoo fasiree ee wuxuu leeyahay xabsiga ha lay diro riyada haynoo soo fasiree isagoo maxbuusa ayaa laga rabaa haddana riyada boqorka inuu fasiro waa u yimaadeen muxuu uga bilaabay yuusufu ayuha asidiiqu aftinaa fii sabci baqaraatin simaanin yaakuluhunna sabcun cijaafun وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون war yuusufow yaa yuusuf buu leeyahay ninkii saaxiibkayga ahaayow war riyada noo fasir buu leeyahay 7 saac oo buurbuuran oo 7 kaloo liiliita cunaya riyuu sheegay dabeetana wuxuu yidhi riyadaa noo fasir aan dadkii kula noqdo waxaa laga yaabaa in riyadaa cilmigeeda gartaane haddee yuusuf iyo xabsigiisaba ka hadli maayo ee wuxuu ka hadlayaa in riyada la fasiro oo uu dadkii dabeetana fasirka u geeyo yuusuf ma odhanin war gaalaya ordooyga taga waxba idin fasiri maayo ee dhaafa riyadu waxay sheegaysaa mahlaka riyada sida uu fasiray yuusuf waxay sheegaysaa dadkan in balaaya ku soo socoto isma odhanin gaaladaa alla ha dhammeeye oo adigii iyaba ku soo xidhaye ha madhaane u aamu ma odhanin ee wuu u fasiray wuxuu ku yidhi war xabsiga iga sii daaya xataa ma odhanin waa idiin fasirayahay ee riyadoodunbuu isaga fasiray wuxuu ku yidhi 7 sannadood oo barwaaqo ah baa idin soo maraya 7 sannadood ee barwaaqadii markay idin soo maraan wixii beeraha idinka soo go'a wax yaroo ah cuntaan mooyaane inta kale kaydiya bale sumbulkiisa xataa ha ka goynina midhaha sideeda iyadoo ah kaydiya sannad walba waa barwaaqo waa beeraysaan wixii beerta ka soo go'a waxa cuntaan mooyaane waxa kale kayd dhiga tiro badan 7 sannadood kadib buu yidhi waxaa idiin iman doona 7 sannadood oo abaar ah 7 kale oo abaara baa idin soo maraya wixii aa kaydsateen 7 kale ku qiyaasta inaad cuni kartaan sannadba sannad inuu gudo iyagu 2 sabcay u sheegeen markaasuu haddana wuxuu u sheegay sannad dambe oo barwaaqi inuu dhici doono oo 7 iyagu sheegeenay yuusuf sannadkan kale xaguu ka keenay waxay culimmadu yidhahdaan wuxuu ka keenay dee haddaad 7 barwaaqo aad sheegtay 7 abaara aad sheegtay hadday sannadka kalena uu abaariyay dee 8 abaar u sheegi lahaa marka maadaama la yidhi 7 barwaaqo 7 kaloo abaara ku xiga macnaheedu waxa weeyaan abaartu 7 bay ku dhammaanaysaa waxa ka dambeeya waa inuu noqdaa maxay waa inuu barwaaqo noqdaa إذا النبي يوسف عليه الصلاة والسلام على رسولنا أفضل الصلاة والتسليم وحاو شيغي 15 sannadood dawladdaasi dhaqaalihii ay ku badbaadi lahayd farsamadii ummaddaasi 15 sannadood ay ku badbaadi lahayd ayuu u tilmaamay taasi maxay sheegaysaa waxay sheegaysaa dhaqanka qofka muslimka ah dhaqanka qofka muslimka ah الأصل هو الإحسان والبر قال يا مسلم بين أدو سبب فشو كاسا أصل كوياه مركز شوفته إحسانية وحبحينية وحايكا ولذلك بقى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يا أبي بكر يا صحابتي وحيابي أبالك اللوغو هي وحاكم مدأها inay dadka u samafali jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam markii waxyigu ku soo degay dee waxyi hore muu aqoonin wuu baqay dabeetana waxaabuu ka baqay lafihiisa inay wax soo gaadhaan waa habeenadii koowaad ee jibriil uu qabtay ee wuxuu sheegay cidhiidhiyey nafta isugu keenay khadiija oo nabiga calayhi salaatu wasalaam dejinaysaa maxay ku tidhi waxay ku tidhi kalla ilaahay baan ku dhaartay weliga in adiga alle ku hoojinaynin xagee ka keentay khadiijo waxay leedahay
nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ha cabsanin horta adiga ilaahay weligaaba ku hoojin maayo sababtu waa maxay bay leedahay waxay leedahay martida waad soo hori jirtay dadka dhibtu haysato dhibtaad ka qaadi jirtay kuwa la dulmiyo waad u hiilin waxay tilmaamaysaa ixsaanka bini aadamku uu sameeyo oo dhan hadda waa intaan waxyigu soo degin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intaan waxyiba ku soo degin oo quraysh iska dhex joogay ee ninka dhallinyarada u ahaa dhaqankiisu inuu ahaa inuu qofkaan waxaysan wax siiyo qaraabada xidhiidhiyo ka dhibtu haysato dhibta ka kor qaado martida uu sooro kuwa yacni inuu ahaa qof bulshada waxtar ku ah xataa abi bakar radia allahu canhu markii ay ku adkaatay noloshii maka intii aan loo hijroonin madiina mar baa dhacday uu abi bakar iskaga baxay magaalada maka markay dhibtu badatay ee aan weli hijradii madiinana bilaabin buu iska tegey isagoo iska socda waa intaan xataa xabashida loo soo hijroon baa la yidhaahdaa isagoo iska socda meesha barkilqamaad la yidhaahdo ayuu wuxuu kula kulmay nin ibnu duqna la yidhaahdo ninka kani qabiilada qaarna la yidhaahdo sayidkeedii weeye waa yeel caaqil ama suldaan qabiil ninaa buu la kulmay abibakar oo iska soconaya wuxuu ku yidhi war abubakarow xagaad ku socotaa wuxuu yidhi innii uriidu an asixa fi lard waxaan rabaa inaan dhulka ilaahay iska maro siyaaxada waagii hore diimihii hore iyo waxaa jiri jiray dad la yidhaahdo waa saa'ixiin qof aan meel la u socon laakiin iskaga baxa un dhulka oo ilaahay baan caabudaya meeshii cishatu baan u degaya iska socda abubakar wuxuu yidhi makaan meel la jooga noqon weydayoo waxaan rabaa innii uriidu an asixa fi lardi faacbuda rabbi dhulkaa ilaahay inaan iska socdo oo ilaahay caabudo saasaan doonayaa buu yidhi ibnu daqina wuxuu ku yidhi inna miluka laa yakhruj walaa yukhraj waar adigoo kale abibakarow nin tolkii iyo dadka ka taga ma tihid nin la saarana ma tihida maxaa dhacay yacni almu'minu yaalif wa yu'lafti weeyaan wuxuu leeyahay adiga abubakari nin tolkii saaro iyo nin tolkiina hoos kaga taga midna ma tihide adoo kale dee mana baxa buu leeyahay lamana saare eh sidee wax yihiin buu leeyahay waayo muxuu sababtaa u leeyahay weedhii khadiija ay ku adeegsatay nebiga calayhi salaatu wasalaam weedh la mida ayuu ibnu daqinina ku adeegsanaya abibakar wuxuu leeyahy fainaka tuksibu almacduum watasilu alraxim wataxmilu alkal wataqri aldayf watuciinu calaa nawaa'ib alxaq xadiiska bukhaari warinaya waar adigu buu leeyahay wax ma haystaha mid wax siiya baad ahay barlaawaha qofka ah qof waxtara baad ahay qaraabadiiyo riximka nin xidhiidhiyaad ahay dadka culaysku haysto qof culayska ka qaadaad ahay nin martida sooraad ahay mashaakilka dadka qof wax ka xallila baad ahay bulshada qof waxtar ku ah baad ahayd buu leeyahay qofka noocaasina tolkiina ma saaraan isna ma baxo qof xun ma tihid buu leeyahay sidaad u baxdaa ibnu daqina weedhaasuu tilmaamaya weedhaasi maxay tahay marka waxay tilmaamaysaa dhaqanka qofka muslimka ah waxay tilmaamaysaa qofka muslimka ah ee dhabta ahi inuu yahay qof wax tara wax ma tare maaha qofka muslimka mid buu maalin nebi ku yidhi ayaa ku yidhi maxaan sameeyaa waxaa sameey markaasuu yidhi haddaan kari waayana waxaa sameey haddaan kari waayana sidaa yeel haddaan kari waayana markii dambe nebigu wuxuu ku yidhi haddaba adigu sharkaagun dadka ka haysa buu leeyahy imtixaanun dadku ka cararayaad noqonine imtixaannimadaadun haddaba hayso wixii shar ah jooji buu nebigu ku yidhi haddaan saa kale wax u taraynin idan waxaynu leenahay qofka mu'minka ahee adduunka waxtar buu ku yahay aakhirana waxtar buu ku yahay oo waa maxay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wiil dhallinyaro oo yuhuudiya u shaqayn jiray shaqaalaha nebigu ka mid ahaa wiilkii dhallinyarada u shaqaynayaa la yidhi wuu xanuunsaday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo booqday waa qof buka oo la booqanayo
وقف بكو الله بوقنا يوم حياة وولي بيهودية عن مسلم مركنا هاي وحقوقي من قرقودي سقط شيفة نبي عليه الصلاة والسلام مركو يمي أيوم ماذا حكى فارست لما تنويل كيرابو حكويري وريا ورسلام نبي ويل كان الجريات بوقا مغطو حوقا عبسي قبا هدوي مكردين تصو نارجلي مايو ورا أسلم بكويري ورا إسلام إسلام نمو ويريا ويل كده اللي يردها أبيه يد يهوديو ماشى شوقة أيو كرو أجا أبيه نوح كويري أطع أبا القاسم أبا القاسم هو النبي محمد كن يديسي عليه الصلاة والسلام وحو كوشي يا أقبل بكويري وضينا دابا تنويل كي واي سلامة واي شهات يسقوا بكو سكراضة أيها شهات كدي منور انت نبي عليه الصلاة والسلام بك صوب حي سقوله الحمد لله الذي أنقذه من النار إلهي باب مهد النار كبد باديي يعني إلهي بوم مهدين يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام قف كابنا آدم كاينو عذاب كبد باديي معنى هذا محي قف كمؤمن كاهي والنفع جيسو أدونك وقرأكم في الله آخرنا ضدك وانفعيا ووحو تجابنا يا ضدك إنو عذاب كبد باديو تصالح هدي قف قبنا يا كاسو هربح ما هدي له قف قولوا له يضبكو كري هدو كاسو هربح ما هدي له وحكى لك ما تفكرتين ان الدم يسمو يعني سوعك ما مركو قبطها يا بيكو صيدا يا عيدكو واحد دونتو كلا عرر روح ما تصرن لها برتو قفك دمي وحالا ميدا مركا دركتا تولكا يا ددكاغي iyo naar ku sii socda dhabahay hayaan uu yahay maxay jidkii naarta uu kici jiray qofka muslimkii marka waa dhawaaqaya war ka jooga naarta war ilaahay ka cabsada war cibaadaysta haddaad dadka khayrka u sheegto oo ilaahay gacantaada ku hanuuniyo dee waad badbaadisay shaqadii ugu weynayd ambiyadu qaban jireen maxay ahayd waxay dadka inay cadaab uga digaan jannana ugu bishaareeyaan geedi hadduu kugu soo baxo dad guuraya oo wax wanaagsan raba inay helaan oo aad halkaana roob ku ogtiyo barwaaqo halkaa ay afka ku hayaana aad abaar ku ogtay maxaad odhan lahayd wararkani meel la qabta maahee halkan baan ku arkay geediya barwaaqe xagga kanu ka cabad kula talin lahayd ilaa waad aragtaa geedigan hayaanka meesha daran ku socdee waxaa la mid ah iyadoo ilaahay inooga warramay janno iyo naar inay jirto markaad aragta geedigiioo ku sii jeeda xagga naarta inaad tidhaahdo war ka daaya war xaggan baa khayr ku jira war dhankana u socotaan ma aha maxay dhankii khayr ku yaallay maaha sida awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa dacwada iyo diin dadka gaadhsiinta nin baa ilaahay qur-aanka inoogaga warramay aan isagu rasuul iyo nebi toona lagu sheegin fii suurati yaasiin qisaska qur-aanka qisas aad u cajiiba ka mid ah qisada suuratu yaasiin ku jirta ilaahay wuxuu kaga warramayaa magaalo 3 rasuul loo diray oo diiday الرسول الله دري ديدين ومت كلا لو كردي او ديدين ومت سدحات لو دري فعززناهم بثالث دبتنا ويس سو تاغي إن تطيرنا بكم بابك مرة وديدين دينتي نين مقالة دا يشوغي لكن دعالك كلا يشوغي هل كراك يشوغتان مقالة دا كلو كتك شوغي وحو مقالة مقالة دي إن رسول تيمي يودتك ديدين دبتنا إلهي قرآنك وحكوت الماما يا هل كاسك عرر وجاء رجل من أقصى المدينة وجاء رجل يسعى له الرئيس من أقصى المدينة ما هو الرئيس إيه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إلهي مركو روحت الماما مشو كي مشى اللي اسكوها يا أنا هين مركو كواد أقصى المدينة بالليل magaalada dacalkeeda halka u durugsan buu ka yimi waxa kaloo la tilmaamay qaabku u socday nin iska xaragoonayo ayar socday inaanu ahayn nin ordaya inuu ahaa tolkii buu rabay inuu badbaadiyo
magaalada dhinaceeda dambe nin ordaya ka soo cararay baa ilaahay yidhi muxuu leeyahay ninkani wuxuu iska xil saaray eegada ismu odhan war meesha 3 rasuul la beeniyay adiga ma cid baa wax ka dhagaysanaysa iska tagtay danahaaga iska raaco هذا واحد لقى بين الثلاثة واربكا وداتك وعدية وداتك وهداني راعي إنهم حادي كل قوينية كان لكن صدح رسول بالذي ديه لكن ولي وحد درسي حل ساريه إنه قف بنا آدم أو حقبا كرين وياه إنه وحتره دبتنا إلهي وحليه وصاعر من كاس ماشي يمي سقول محي اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وارتلك يا أبولي والرسول شراعة وارتدان وحبابا إذن كربين أو هدنا هنوصل محاكو ديديسان بني آدم كهدو أتستراحضا أما تشاب كاو كسعدا أما مقعية ما مصيبة مدحنمية وحبوكا قدونية ألغايا بينات السيارات كيسو اسبضحات كيسين لكن غفك هدو وحكوش يا قيسو وحبابا كاربين أدون كويديسان مدحنمية كويديسان وحباك لك كاربين هدو وحكوش يا قو وهتلاقي غفك سوكو نسيحي إلا ندنك لو كوكو قبا ما جرتو وهتلاقي وكو نستيحي وحوني كان إليه هاي والرسول الراعة وايو أدون نايدن كمان ربان مقعنا وحبايدن كمان دونيا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وروانا هنوسين حق بايدين شيئا وحكا لو يدن كربان ما جران الراعة بكلي ولا داس ما يراعن سقوح شاكتين إنه مؤمني إنه إلهي الرميي رسول شرار الرميسيي دبتنا ويدلين سي علماء الشيخية ويدلين markay dileen maxaa dhacay ilaahay baa quraanka wuxuu inoogu soo guuriyay ninkan oo aakhira jooga wixii uu hadana ka fakarayay hadama markuu adduunka joogay shaqadiisi waa la inoo sheegay markuu dhintay aakhira qabtay sidoo hadana uu fakarayay baa ilaahay inoo sheegay aakhira markuu tagay muu oranin nimankii rusushana diiday adigana ku dilay ilaahu midha ka reebin kama fakarayn ee wali wax tarbuu la rabaa يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بولي يا ليت الله جعل الله يا بولي تلكي إني أقال لهايين سيد إلهي الدنبقى يقول رافي أو يكرامي النعمة يسيي جعل الله يني ما أنت أقادان سيقول راعان يعني ينرسو شو صار راعان isagoo aakhira ku maqan ayuu wali wuxuu tolkii la rajaceliyo la raadinaya maxay ayuu wanaag la raadinaya ma oranin war waa nimankii dilay ee adduunkiiga keenay aakhira ii diray laakiin wuxuu leeyahay isagoo xagga joogo wali wuxuu la jecel yahay kuwa in khayrku gaadho oo tolkii inta ilaahay rumeeyaan waxa uu nimco ku jiriyo wuxuu dambi dhaafaysta iyo karaamada alla siiyay inay wax ka helaan idan ayuha alahibba لأنه مؤمن كدبطاه وكادتكو أي كسهرتان وكادتكو جعلين يسندتك خير كلا جعل وكاونا قفافنيا وكادتك واحترك وكادتك أنفع الدنيا أنفع آخرة بقوله وحبنا آدم لغو أنفعنا كاسبا والروح نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام isagoo dagaal ku jiro yahuud ay dagaalamayaan غزوة خيبر dagaal adag buu ahaa qalcadihi nimankan waa la furan kari waayay dhowr maalmood baa dagaalku socdo la isku soo noqonayay maalintii dambu nabigu yidhi saaka waxaan raayada calanka muslimiinta waxaan u dhiibayaa nin ilaahay uu jecel yahay ilaahay rasuulkiisu jecel yahay isna jecel dabeetana cali ibn abi talib baa loogu yeedhay cali oo bokooraba ku dhacday waa bokooraysan yahay cali meeyo waa bokooraysan yahay baa la yidhi u yeedha buu yidhi cali ku tufay oo u duceeyey cala indhihii fay u yidhaahdeen dabeetana calankaa loo dhiibay calanku waa hogaamintii janankii ciidankaa laga dhigay afka aynu maanta ku hadalno ciidanka inuu ka haysto ayaa loo dhiibay haddaad gaala is haysaan oo aad dagaal dhowr maalmood oo hore ku wada jirteen oo wax idinku kala dhinteen oo goobtaa isku haysaan oo ninka aad dagaalka gelinaysaa maxaad kula dardaarmi lahayd
waxaa laga yaabaa hadday naga caqligeenna inaad ku dardaarmi lahayd nimankaa xabad ha ka sii dayni sidii aad u qaban karto iyo dhadhansi qadhaadhkaaga inaad odhan lahayd laakiin nebi maxamed taa kulama dardaarmin wuxuu ku yidhi islaamnimo ugu yeedh kow nimankaasi waa yuhuud waa la ishayaa waa la dagaalasay haddana khayr baa lala rabaa waayo qofka muslimka asalkaba dadka khayr buu la rabaa asalkaba dadka khayr buu la rabaa gaalnimada inay ku dhintaan faa'iido kuuma laha inaad gaalo ka dhigto dabeetana laysaa faa'iido kuuma laha waxaa kaaga khayr badan inay islaamaan oo islaamnimo ku dhintaan dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi fawallaahi لأن يهديك الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم إلهي ما كنت أرتب النبي عليه الصلاة والسلام إلهي إنه قعنت هذا كهنون يهلننا تذكر رئيس إستان متقولين كاسر رعو أيا كاغ في عن وكاغ خير بدن إن هذا شجالة كيس عس بالنبي عليه يعني عربتي واجا شوكتي ده الدولار كوين يه دايما تلا يغني وحها جال عساس جال عس إن تصاه شو لما كانت جال هذا صاحة بصاه وحكاجا في عم النبي يقول له كاجا خير بدن إن الدين تقاطع كو إسلامان هل نينو كو إسلاما كاجا خير بدن سداسي وجد النبي عليه الصلاة والسلام حكوت المامية إن الله حديث كإمام الترمذي ورينيه حسن كوكت المامة صحيح الشيخ الألباني إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير نبقى حلية الله يا ملائكتيس كوا السماء جرة يا واحد لك شوقة حتى أبو نبي قولي هي قرآن تجد كشرته أما كلهم بد كشرة كلا يتهينا إلهي بيوحوا وبريان إلهي إن حرست السيسين يا أنت كلنا وبريسا قف كدتك خير كبره قف كدتك وناق كبره أي خير وبريان وناق ينحرس يوكا كورا إلهي خلقك يسودب هديك ودعيان إلهي خلقك يسودب هديك ودعيان ما حد دعاء كوه ليس إن الضدك وناق بريسيد هذا وحين لنا حديث كان يقول بلا بنا يبوحوها المؤمن يألف يؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وأنفع الناس والنبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام مؤمنكم كادتكم كسو هرتان إلا تشعلي سنة ومدى وناق الله تشعلين وياي كان سنة ضدك تشعلين يقول أنا تشعلين خير بين الإسلام ربيني كاس خير ما لها بالنبي إذن كان واحد يكون خير بدن كينا وأنفع بدن بالنبي عليه الصلاة والسلام أنفع عاسي وحين لنا أنفع الدون والنغنية ودقا وناق أخلاق وناق عفس واحتر عاومه وهدتك السيسو قف كعنا ذاك هالنقن قف أفحن هالنقن لكن نبغى حديث تبدأ كنت المامي والله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه إلهي قفك مسلم كأوحوه هيليا وقرقارا انت أضادقنا ولالك أو هيلينيسو انت قد كتشلعسان واحتريسو كبو كدوينيسو كجاهل كأوحبريسي كتمرت الدران لعاوينيسي كالنسان هنونينيسي انت تسيدها سمينيسو أدقنا رب السماوات با كبت هذا تولي داد مسلم كبتو هذا توليسو أدنا رب السماوات أياكو هقاتشينيا دبا أيها الأحبة waxaan leenahay qalqallafsanaanta iyo cayda iyo maaga badan dadka badhbaa diin ka dhigtay dadkoo la maago inay khayr ku jiro waxba faa'iido male maagista iyo adayga iyo qallafsanaanta iyo cayda badani khayr male muuminku waa hayinun layin waxtarkuna ama mid adduun ha noqdo ama mid aakhira ha noqdee waa dhaqan muslim صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.